waan heesayahay sanad waliba hoodiyo hawl iyo dhibaatiyo wuxuu hadiima leeyahay waa laga helaayo hadhow lagu xasuusta kii noo hagaage noqon loo han weeyahay. horta bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin. waan idin salaamayaa guud ahaantiinba meel aad ku sugan tihiin marwo iyo mudanayaalba. waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaa kulli caawa soo galaya sanadkii milaadiga ahaa, maaha sanadkeenii sanadka islaamka maaha, balse waxyaabo fara badan baa inagaga xidhan, waynu ku xisaabtanaa. dabcan markaa waxaan leeyahay xamda mawlid walaalaad aad baan kuu salaamayaa. barnaamijkan inoo sii faafiya dabcan si asxaabteena dagaal culus baa jira oo reer somaliland ku socda. dagaalka loo kala tegi maayo, maalintay ugu daran tahay nin ku diirsadaan calankii somaliland waa kanoo annagaa sidana, annagaa faransiisna ku nool meeshaan doonana san doono bonane buswaaq monami. waan idin salaamayaa dhammaantiinba. waxaan ku bilaabayaa barnaamij ugu filan reer somaliland marka qaar iyagaa dhibaatay ugu filan walahi bili iyo tole. barnaamijka waxaan ku bilaabay horta kow faqash waa faqash cadaawad uun mooyaane caqli uma kordhin. faqash waa kuwaynu isla naqan, waa kuwii soomaali burburiyey ee soomaali baabiyey. kow horta walaalayaal, marka koowaad anigu beesha hawiye haddii yoolku idinka lunsaya reer somalilandow waxba kuma haysto, xaqiiqadaa fiican. halka wax igaga maqayin iyo halka layga dilayna nin garanaya baana. xamarna waxba kuma haysto, iyadaaba tabcaana xamar oo u baahan in maafiyadan iyo balaayadan ku habsatay laga dulqaado, oo waxba ugu sii dari maayo, waxana odhan maayo. halkaa aynu haddaynu doonno reer somaliland ku kala aragti duwanaan, anigu xamar waan isaga ducaynaya wadda soomaaliyeed. wax allaalo wax aan dabasido waktiganna iyagaaba tabaalaysanoo maba jirtaba. kow haddii aan dhibaato aanu qabnana shalayto beled weyn baynu caawinayni, waa muqdisho agteeda beled weyn, waa gobolka hiiraan. reer somaliland baa intay dhaqaalihii ugu badnaa soo bixiyeen, waa kuwii halkaa xitaa biyo xidheenada looga sameynayay. waan aqaanaa halka layga dilo, faanna ha noqoto. horta waxaa idhi nin isfaansho waa ri isnuugtay. haddana muxuu idhi ninkii jiray, nin ammaantii meersha ah ri ismaashay weeyaan, mid kalaa ka daba tidhi haddii ay kumoosaan kartaa la ysku muujaa. taas ayaa macquul u eg. horta faqash keligay bay la dagaalantay, keligay bay la dagaalantay, idmaan soo caban. xaqiiqadaa fiican oo reer tolka ee habar jeclana iyaga wantir baan ka noqday, waan ka fallaagoobay, iminkana waanu sacafin. balse in muddo ah waxa igaga darnaaba faqash reer somaliland baa igaga xumaa. waayo nin baa wuxuu yidhi hebel waan necabahay, inankayga waa necabay kaak, laakiin ka isaga necab baan kasii necabay. reer somaliland baan kasii necbaa reer somaliland. waayo dee waxaan ka sheekaynaya wax soo maray, sababtoo iyaga igu lahaa shalayto waxaasaad lahayd. war kuwii 60 calanka geemaan reer somaliland ahayn miyaanu hungo kala kulmin? miyaanu cali suguul cigaal dun carbeedna habaruni soo reesha qasxaaq aanu ahayn? miyaanu gaarriyayna sacal musa allah u naxariistay? miyaanu hadraawi ahayn? hadraawi wixii ugu horreeyey uu qoray markii uu macallin ka noqday jaamacaddii la foole ee macalinimada loo qaatay, weliba markaa la foole lama odhan jirin magac kale lahayd, wuxuu qoray ee uu ka yimi xabadi keentayga wahaa uu ka yimi yaman, I love Somalia. laakiin maxaa koosgareeyey inuu yidhaahdo markii dambe, inuu yidhaahdo daari yaanay taagnaan furta duruucda ooryaha. war anigu waxaa nin u joojinaya maxaa koosgareeyey? marka maxaa koosgareeyey inuu yidhaahdo ninkuu yidhi sinaan mayno adna buri sarriintiisa ma 9 baa tii susadka waa wadaagtaan. maxaa koosgareeyey? waxaanaa koosgareeyey. waxani may dhiman. kii shalayto dadka laayay ee xasuuqa geystay ee dibindaabyada geystay horaan idinku yidhi sanad iyo bar ka hor baan idinku lahaa. war iyagii baa weliba raaligelin doonaya. wuxuu yidhi maadigaagii deebta lahaa ee dibindaabyada geystay baan weliba dawna ogoleen. faqash iyagaa doonaya in weliba la raaligeliyo. waa dinka arkayo cunsuriga number 1ka gacma dheereeya bay isku haybin. dadkii xasuuqa aljasiire ka geystay weeyaan. haddii uu cunsuri jiro ma waxaa cunsurigaad ku noqonaysaa reer somaliland? waa ka calankayga somaliland baa loo I love my flag and also my country and all my people and also I will die. wallaahi waan ku dhimanaya somaliland inta ay faqash nooshahay. allaha raxmaankaabaa igu og. 6 maalintuu dhintay afar stating sida dumarka u mashxaradeen rag weeyakayaashood muqdisho ka mashxaradeen isna ma wada 6. inanka maxamed biike ee
fanaanka ah waxa isugu tegay faqash iyo faqash kalkaal rag waa kala nooc bili aadamku moraal buu leeyahay marka moraalka laga dilo war kun cod oo aan lahayn inta isku saareen saasoo kale oo hadlay ay ku soo dul sawiraan waa sakhraan waa sadan kale waa maxishoodayaal waxaana waa sakhraan iyo waa hebel dhagaysta madaxdii SNM ee aadan cadde mujaahidkii weynaa ee watay ciidankii Sancaani SNMta waxay ku oran jireen waa indhacasayaal iyo waa sakhraameen iyo waxna waa caadadood bal nin gurigiisa laga haysto oo hantidiisa laga burburiyay oo ooridiisa laga haysto oo dulmi wala bili aadankii ugu xumaa uu haysto indhaha casaanaya buri musabix mooye madaxa ku casaanay oo adigii waliba maanta kule bal maxaynu iyaga dhulkii naga burburiyay dadkeennii bay laayeen deegaanadii bay naga burburiyeen gobonnimaynu sameynoo waynu iska dayn iyagii baa ilaa maantada inagu leh cunsuriyiin baa tihiinoo dal baa dumiseenoo dal baa naga dumiseen oo dalkee baanu dumin ma annagaaba wax nalaga dumiyo dalkayga iyo deegaankayga iyo dadkayga inta la laayay baa waliba adigii lagu leeyay masaa reer Soomaaliland waa dhageysanaysa horta aad iyo aad waxaan uga xumay fanaan biike waxaan eeda saaray anigu isaga saari maayo fanaan biike waa fanaan inkastoo nin geesi ah rag u geed adeeg yahay haddaan garab kala la qaban gurigoodii maayo marka isaa kula dagaalamayo waxa la dhinin walaalkii doorsaday ilaahay darajan si waa marka kuwa isaa kala dagaalamayaan anigu idma kala qaaday wala habarunis bardin kala qaadeen wala habar walba dhadin kala qaadan wala habar jacaan kala qaadan way waxa saad ka heshaan imka hadaan anigu maanta habar jeclo oran lahaa oo halka ku kala jabsantiin baan arkayaa oo waxa jeceshiin in la yiraahdo habar jeclo ku ranaysa habar jeclo soo raac Allah musta'an habar awal waxay ku ranaysa habar wal soo raac garax waxay ku ranaysa warqadeedii guud meedan maxaad ku dagaalantay maxaad soo dhimatay siyaasiyiintaana qayb ka hadalka walaalayaal kulli waan isku dhex daray iga raali ahaada waa dadkaygaan la hadlay anigu faqash waan seesanaa faqashna waa faqash waa cadow waa nacab waa wax burburiyaal waa dulmi walayaal waa kuwii Soomaali isku diray ee kala diray maantana iyagii ayaa shaarar soo xidhay oo social media jooga fanaaniintoodu waa cusuriin xasan aadan heesaa ugu badan yahay u dhiibay miyaanu xasan cabdilaahi xasan gani aanu dhiibay axmed cali galiya heesaa u dhiibay miyaanu wali hargeysa iyagoo tagay madartan ama hargeysa soo boqday ama Soomaaliland ba tagayba ma waxa qofka lagu qabsanaya oo lagu la dagaalamaya reer Soomaaliland kuna daawanaysan war dhulkayga iyo deegaankayga iyo halgankayga dee waan jeclay dulmi baan iska dulqaaday waa lagu la dagaalamaya inanka waxa dagaalka u geystay waa reer Soomaaliland doqon ah oo iska dhisaya ninku ugu cadow war ninku ugu bareersan markuu bareersan yahay dunida wala soo dahaya qofku markuu bareersan yahay daadna bareer ma adiga doqon oo xayawaan ninkani sheekadiisu ordinary-ga dadkooda marka caadiga la eego dhamaantood waxa qura ee ay ka raadinayaan waxa weeyaan siyaad bari macangaga ha dhigacka ha inaad tirahdid oo saxsanaa oo ii jani friday soo dad ku soo celisay hadda waa ninkii aayadaha quraanka beeniyay suuratu nisaa beeniyay ilaha wixii la idin ku shubay baan idin ka shubayna ee culimada madaxa gooyay ee sharciga iyo dalkii Soomaaliba baabiyay ay haddana oran wadaribo aha waxay koranayaan qaran dumis baa tahay Soomaali ma tihid waa inaad tahay markaa farmaajo waa nin fiican iyagu wadaniyada ay raadinayaan waa inta wadaniyad kale iyo wax kale hadda inta u dhaweedo cunsuri baad xaqooda waxaad ka noqonaysaa cunsuri bal tusaale nimanka deesanaya onolof urbaha ka dagaalama Ethiopia dhulka Soomaali ogaadeenay ama Soomaali galbeed Ethiopia si toos ah bay ku dhex galeen hubkii bay dhigeen Ethiopia qayb ka noqdeen bulshada haysa maaratan miya lagu Ethiopia baa noqotaan hayaay ka kacay goday iyo wardheer iyo jigjige iyo Ethiopia caadi u noqdeen oo ha adiga taada xurub miyaan tooda la socon mudum ha tayada uun suray halka Soomaaliland adiga majority leaders minority wax adigu aad doonaysid baa sax laakiin waxa nasiib daraa reer Soomaaliland qayb kamid ah oo maanta cadowgoodii iyo nacabkoodii aan kala garan karin oo qofkooda ku xumaynaya musabixi oo shalay tiimi oo madaxweynaha ama xukuumadda markaa joogta iyo hebel baa waxa sameeyay oo iyagu kaagaba soo horeynayaba wana waxayna ka ku dhacay maanta anu halkaas ka garanay
waayo waxaan miidiyuhu wuxuu leeyahay hawlo gaara buu leeyahay hawlo gaar ayuu leeyahay wayda wada haystaan ima soo hadal qaataan waayo waxa taadaan cabsanaan beriga sanad iyo badh baanan la socon oo aan keligay la dagaalamay keligay cadowgu oo ay meel kastaba qofka ay isdhaahdaan qofka waxay idinku bixinayaan hanti waxay idinku bixinayaan hiil markhaati madoon waxaan hore idinku sheegay oo laga soo helaya youtube-yada iyaga ay qaadan jireen ma ilaa youtube-kayga ma soo doonataan war nin weyn oo oday oo isku xidhan oo ah kuwan sanaag baray wuxuu ku haystaa NGO Canada waa maalmahan ka qalbi jabay Canada buu wuxuu joogaa Vietnam meesha ilaa Canada ilaa Mareykan intaba way isku xidhayeen oo connection ma ka dhaxay waninka maalin igu yiri damiirka waxyaabaha qaar uu diiday deelan doqon ma tiide mar uun baadimi marka dadkaaga lagu dirayo dadkaaga la raba in la xasuuqay dhibaato loo geysto de waa damqanaysaa hadaana dul yahayn de waninka igu yiri maalin niyow sheegaanta halalaayo sida 1994 oo kale waa ogtiin waanu ila socdaa hadda ka warnaan waxa ma qariyo inay hooyadeen habarniista raacad firsatay anan habar jaareer dahana oo reesha qascaaq ahay ma baqariyaba oo ilaahay ba inuu qarin kare mabay ilaahay bay ma qarin ilaahay baa xirsi cismaan iga dhigay reer daharna iga dhigay saasaanu ninkii horta markii baan bloogay iminka ku yar radio qolamaadsi oo la socda xagaa waxay seekin dhigayaan qof wanaagsan ilaaha baan idinku dhaarshay bal just imagine 1994 iyo 1995 maxaa dhacay allaha raxmaanka baa igu ogay dhinaca galbeedkana abtigay labaad oo ruma ayaa ku dhimanay abtiga fogo kale iska badaala oo hooyaday la dhasho reeca aftabela barigana waxa ku dhimanay adeerkay ina aabahay ina adeerkii ruma xasan fagaash raga caanka oo garan sanay sinan taxta kuwaasuna isna baahanoo biraninkii loo dhin jirayba madamqasha dhinacan hooyaday baa ooyeysa dhinacana tolkay baa ooyey marka dhaawaca saa lay soo hormariyo ee Allahu musta'an dhaawaca iyo maxaabiista laga soo qabto dhinaca galbeedka ee habarniis iyo habar jaalo marna waan damqadaa hooyaday baan eega marna tolkaan eega waxay uur ku taalo ilaa imika waan xasuusin halka horteeda yar wala soo marin jiray war mana waa foortaan dadkan oo taariikhdan aad sheegay ma dhageysanaysaan hortaas la soo marinay dadka isleenay dadkeenii bay ahay oo dagaal ehliya buu ahaa alxamdulillaah rabbil caalamiin inagoo saa suleynay haddana inagu dumarka ma inaan waayo biyiro way noogu iman jireen dumarka garxaajis oo dhan xeersa cismaan oo dhan hooyada way iman jireen oo u ahayd saldhig oo safaarad ahayd halkaas ay noogu iman jireen dumar waxba imayna yeerin iyaguna waxa ma yeerin garxaajisna dumar waxa ma yeerin wuxuun baa la isku leenay soof alooliyo aad u nidaam markii dambe naga heshiinay xitaa ay halka gawaadhida ka raranayeen ee biyaha oo barta markay abaar ku dhacdo la isu imanayay laakiin waxa nasiib darro ahayd wixii ku kala dhintay bal ninka ku taamaya inay tii soo noqoto oo aynu islayno oo dhiig daato haddana markaad ku odhanaya cunsuri baa ta ka war iyo dembiilaad dadkaagi waana isku wada mid all of them dhammaantood taasaan soo taagnaa oo social media aniga qabsatay oo aan arkaa haddana kuwa noocaasi marka qof reer shaqo saxaaqa ama qof reer Soomaaliland uu meel kala ka hadlay waxay soo qoraan wadana dhaleebaad aniga imika beriga soo ku kumanaanka igu daawan jiray YouTube-ka soo dinka arki jiray maxaa u dhacday imika runta ka hadlaya xaqada ka hadlaya maxaa leegu yariiday maxaa maanta BK hortiina lagu bahdiraya maaha kuwii kale maxay tahay waa is dhiganaysan dad is dhigtay baa noqoteen oo kala qaybsamay waliba gaar ahaan siyaasiyiinta laftigooda reer Soomaaliland kala qaybinaya siyaasiyiintii la doonayay markay xilka ka degaan inay dadka shaqo abuur u sameeyaan oo ay dhalinyarada jiheeyaan ayaa waxay idinku jiheynayaan xukuumadii oo xukuumadii buu idinku jeedinayaan wax meelo xukuumaddu waa sidan waa hebel kale waa sidan reer وكلا غير بسنتين هبرج وارونتين دي هبرج عليهم كوا هبرج على قف بوضتا هبرنس قف بوضتا قف يقرن قبيل تعال قف تعال إنا تهدان قرن بان نقولنا وحس قمنا يا ما عدو جينو نو تراب كعبتين وقف جينا هالدور كأنا مالين كستبا نين أن هرتا الحمد لله رب حبت دجال كم سنين كران لكن دجال كم هاكي حبت داوبرا dagaal maanta waxa la idinku jiraa meediyaha oo idinkiiba brain wash la idinku sameeyay masaa qofkii wuxuu ku gula doodayaa maantaba marka sadaqa deedaasa iyo taagud shalatana markaan mid Soomaali baan ka hadlay imikana Soomaaliland baan ka hadlay
waxa lagu dhinac baa lagu saaray maxamed hembo wata musabixi baa wata hebel kale ma qof baa la wata mise qarannimeen wadna madaxweynuhu maanta hadal ku lahaa wallahi isaga laftigiisa geestul waaye musabixi wallahi isaga laftigiisa geestul waaye waa madaxweynihii Soomaaliland soo mara ee dagaalka ugu badan la kulmay ma akhran marqaatiga u furanay imkaan noolaan u furanaa reer Soomaaliland baa la dagaalamay faqash cusub baa la dagaalamay soo madaxweynihiisa ku horeeyay xilligii Axmed Sinaayo faqashta koonfurta ma haysan niman hawiya baa joogo nimankan yoolkoodin ku idin ka lumaya isku wada qaad oranaysan isku wada daraysan wareer qadiyadeena iyo i'tiraafkeena waxaas waa baab gaar laakiin nimankaasu shaqayntan iyo kala qaybinteena iyo cadaawadeena aad ugu mashquulsana iyagu tooda ama hagaajistaan muqdishooda ama yaani hagaajistaan wuxuu la kulmay musabixi dagaal dibadeed oo kaga socda faqash oo dhan mid gudaha mid qabyaalaysan inaga marka maanta gar iyo waaq markuu hadalka halka ka lahaa hadalka markuu barta ka lahaa oo lahaa warma dawlad qaaraana bay noqon gar iyo waaq bay ayaa wallahi xadiis baan hadalkiisas xadiis oo kala waa runtii soo anagu imka bulshada kuma dhex jiro weydinta kala qaybsantihiin qaar maxamed xaashib la socdaan qaar waxay la socdaan Axmed Sinaayo hore qaar kulmiye koranayaan qaar wadani bay koranayaan qaar kale intaasa ku weyn ma arkayaan way isdhigtaan waxaad moodaa in Soomaaliland laba aqoonsaday oo la i'tiraafay oo main targetkaagi cadawguna wuu habaysan yahay oo uu diyaarsan yahay waa connection isku xidhan waa kuwa markiiba inankii bartaa yimi ku yiri khalkhalka galiyay yiri fiisahaaga laga tuuray kulli horta isaguna uu nigeera degdeg oo fiisaha loo yaraa jira meeshu waa British waxa jira Allahu musta'aan hadii fiisahan iyo waxa lagu caga jugleeyay si legal baad ku tin haddaad dhimanayso war banaani waa kuwaas ay yimaadaan wax aanan isku oran walaahi baanu jirin anoo kaliya oo reesha saarnay la socon habar jacnay la socon cabdisa Francisca am Somaliland imka bolo xasan karsan sameeyo habar jacnay saaq baan burcan ka yimi calankayga waa ka Somaliland baan marka idinka noqotaan halkii raggii hore ka mareen oo baan idinka maray والله إنا أنا وحكة فليسن لكن وحي أحوجين حسرات يحمان تغير سوماليلاند وحوجين نقال القطول دقيق تقول إذا نقرهم ما يصنعين سديد بلوت أو على حالي أي دبس عده أو لها العتن كو كردين كون بانو كسينان ولي ما سوماليلاند أنا بل سوى التقوى ولي غير سوماليلاند حتى حميد مديستي هذا وحوي سنة ما هذا العقد دوني بريجي هبرت عنه ماشي استي يأكل مية ما نيم كده محمد كانوا وقعية ذيك العكس هذا رانوجو قد يدها عن قاتو حكم ده محمد إبراهيم ورسامة هدراوي ما أنت حبس اللي جيني يقاس حدارك قد يدي سئو وحديدي ولا هو وحديد مركي تشتاو وحدون كنا من المري والله حبيت روديه يروح مية بجاي سربان سعد أنا قلنا الحمد لله رب عن برتا سنكشرا إحنا وجماعة باهي هذا أنا حتى هالكم كوتشرهن ما شو بيجي يقدر هلا جوات توربا صرنا والله هي قالت على ودل كبار ما نيا شنم بان نقول نيا بوزيشن دي من بروحنا يا هالكي إسنا بقى دجالات أول ربع ساعة إن يربع نوع دجالات يو إسنا ما هيد أو مركي هالك أكو قاعد شوني يعني رجعوا سرعة بدين قارب يسكر حسنة قارنا مقدوش يشوفين والله هي إمكان أنت الدنيا ده كنا ولا هي قف فقشة أو رمبان دين شجع واسكو هذا مد فلسفة دو اسكو مد وروان وناجن هذا ربنا نحن وده هل دينور هيرو قدوده وانقولها ورسوكوي إن السودح مريج ريكون مريحانة على يهودي يرى سوكوي إن السودح مريج ري مياناي هالكا يبلديك سمريج ري مياناي قرلوك سمريج ري مياناي دولكا هبرش عودن دكتور أحمد فارح هديين سلمدو هديين عبران هديين خير دهر هديين يوسف هدي مياناي إن السودح مريج ري مياناي روتش ورس كداي والله ما أنت يجا قدرة يجا قوقهم وايو إنك هيرو وهرت سيستاشي وعلي ياسين بلل وإساق ويجي وانيمانك أنيجا إلى تجعلماي إساقهن يأسنمهن يمحون كان وحصوها الغادة يوحي فهم كريا وامحي يعني ما قاعد إلى تجعلمان يقول شباب جدا ما أنت هالك ومد إلهي الصومالي هذا ومد كلام وحبوجين سوي هذا نوع عبد سعيد يروح كان دو كل جاي عبد ضد كإله وعبد السلام كان محاد إلا ويش هو حوفر فرديا وأنصار ويلشر بلقود الريح يا ويلشر حرامينتي سومالي سو دميي بارانكا سو بوبي والله ويلشر بلقود الريح ويلشر مسا iyaga oo sheeka tagaya oo masa waxa la qoranayaa waa kuyde maxuu dhaadaaw janada durduurta hadaan dad ku soo qobin waa kuyde lagu taxi jiray ee qabyaalada kabaha dhaadheeraaga mashaayniga yimi iyo meesha la yiraahdo war waa inoo ya dagaal
waa inoo dagaal weligiin iyo alihiin inta weliba Somaliland waxaan leeyahay oo nabad sugidda Somaliland dadka Somaliland laga saaro inta deegaanka waa sax inta idin basaasta ee idin waayo maanta Faransiis baan joogaa dalkan Faransiiskan ku nool xasiloon darro kuma samayn karo waan jecelahay nolol baysiin way wanaajin idinkoo reer Somaliland oo aynu wanaajinay oo aynu nabadgelyadooda ilaalino oo booliska Somaliland oo ilaaliyo oo hantidooda la ilaaliyo oo annagoo shacabaan dhalinay ayuu haddana wuxuu kugu wada dibin daabyadaadu ka shaqeynay iyanu dhibaato ku geysto ayuu ku geysay ayuu Somaliland waxa leh jileecan iska daay dunida maalinba meel bay maraysaa war madaxweyne Muuse Bixiyo iyo Maxamed Kaahiro shalayta markaa dagaalamayeen marxalad bay hado xaalad bay waydinkii inta dumarkiini iyo caruurtiini iyo noloshiini ka dhaqaaqdeen duurka galay ee soo dagaalamay maxay dariisan waa sabab ah de maantana hadaba dagaalkii mid kala jiro oo dhalinyaradan dambe aan waxba ogeyn oo qabyaaladooda lagu soo dhex tuurayo waxaan pages kala oo dhan ilaa waxaan ugu howl galay waxaan oo dhan waa nidaamkii aad dumiseen oo sidii cadaawaddiidin ku qabaan ayaa maanta waxay ka dagaalamayaan social media idin kala dagaalamayaan idinkuna waxba ma ogidinba masaas ka odhanaysaan qayb idin ka midana waxa odhanaysaan reer Somaliland waxbana laguma samayn karo wal haddii maalin kastaba qofkaaga haldoorka la niyad jabiyo annaga maxaa kiin soo dhexgeliyay hore noo haysateen ficil baan kiin soo dhexgeliyay ma qaadan karno mana yeeli karno walaa habariyun san noqdo walaa habar jecel ha noqdo walaa arab ha noqdo qof reer Somaliland oo u faqash xayawaan in gumeeda oo dariyaha iyo guran jiray waxa la yiraahdo waa nimankii uu ku lahaa Ibrahim Garle oo lahaa sida daalinkii hore daawaha agoontiyo mamidaaha qaatiyo dacaska ma tagay dhali kayare Abdi Fataax wallahi laad baan la dhicilaa darbaaxo markuu dadka wareysanay sudinka arkay sidoo la hadlay ninka la yiraahdo Professor Samatar ma ee qadiyada wuxuu yaqaan qofku hadaan oran adeeradiisa aad baraya ma dharadii Morgan iyo reerkooda hadaanu amaanin ama aanu dhaway saxsayn Soomaali ma umada reer hawiyana waxa leeyahay de haday idinka idin fasheen ilaahay falkooda ha idinka fardaamay laakiin balka Abdi Fataax waxa iga si daran ba aniga BK waxa iga daran oo la xalatan waqtaaladiisa ka saxan karo war balka wareystay daya wallahi mid ka cunsursan oo ka doqonsan warniyo reer shaqas xaqam maxaa helay warniyo reer shaqas xaqam maxaa idin helay gaariye hadraawiyo Cabdiqays rag ahaa iyo SNM wallahi SNM labaad ma sameynaya new SNM waxa ma sameynaya war bal nooc idin wareysanaya daya hadduu Professor Samatar wax tarayaan 8 cod bay siiyeen Professor Samatar 8 cod ninkii weligiiba Soomaali u qeylnay baa qabyaalad baana kuwa Soomaali isku dirana waa haybto ka soo jeedo ka xunay halka Abdi Fataax iyo wax sheeganayay ee BK-na wareysanayay inanka BK Allah rahmaanka way de balaayada jiray waan nool reer Somaliland wada BK ban qadiyadeedana annaga haysan markana loo baahdana annaga ciidan noqoneen wallahi idinku fleebaatino qurbaha ka dawarsataan oo aydun qurbahan iyo noloshan baa idinku cusubay intaanu qurbaha ka tagno ayaan wallahi bartiin idinku taginaa oo qadiyadeeda iyo Somalilandteeda oo lafka hadla oo lafta Ethioopiaanka noqotay ordo ka hadla maxaa naga ninkii daba dhigay maxaa Somaliland idin daba dhigay waxaan noo haysataan haddaanay Somaliland waxaas ka hadlo oo aanay kharash ku bixin oo aanay burburkeeda Somaliland kharash ku bixin wax deemeega iimaan kala ma laha Somaliland waxaan leeyahay xukuumadda Somaliland nimayahow waxaan siyaasad ka yeeshay dhalinyarada reer Somaliland waxaan leeyahay harnimayahow inuu bareerno ragana way inoo bareersan yihiin oo mid kalena waan kula dardaarmaya dhalinyarada reer Somaliland waxaan leeyahay niyow targetku yaanu idinka lumin targetku war ninkan miskiinka ah hawiye ee isagu iska dhibaataysan xamar jooga waxaan ku qabsanaa waa khalad anigoo cabsanaana baan kula waa khalad way daraasad baan ku soo sameeyay kaaso arinta qureen isku haysta isagoo inuu tashado bal ha tashado oo waxaan hayska dul qaado inagu laakiin ninkan mucjisada ah ee umada jirjiroolaha ah waa faqashtii hore iyo kacaankii oo maantana wada jooga isugu wada tagay dhammaantood muqdishona jooga adigana dhibaato kugu wada oo reer Somaliland intay dhex galeen
ayay waxay inala marayaan findhicil bay maanta inala marayaan oo wallaahi waxay inala marayaan meel halis badan intaynu waxaba dhulka iska dhigno sida raggii ee sinimay isdhaarsaday waxaan kalaba haynoo dambeeyaan inaynu iyaga meel uga soo dejiisano waajibkaa iguud suraya cunsurina ku noqon maayo dadkayga iyo dalkayga iyo Somaliland iyo reer Sheekh Isxaaq iyo intay la joogtana wanaag aniga leh ha noolaada cunsuri iyagu isagu ma cunsur ahayn maxaa damiirka ku diiday waa maxay farmaajo qabyaaladaysta oo ciil qabaab u taageeraya iyo reerkoodu taageeraya dabadna markaasuu adiga wuxuu ku oranayaa cunsuri baad oo isagu ma cunsur hadduu isagu daaroodnimo ku dhimanayo annaga saaqnimo ku dhimanayo sideeban cunsur u noqda wuxuu miiga fiicay daaroodba ku dhimanaya oo farmaajo oo dhiigi cabaho ciil qaba ah oo ummadda isku diraya oo haatan xitaa dowladihii imaaraadka ay haystaan oo beenta ka sameynayay gabadhacleyntiisiibuu ku odhanaya soomaalinimadu ma daaroodnimo ah soomaali ma daarood baa la yidhahdaa lama yidhahda dee soomaali baa la yidhahdaa isna waa qabiil soomaali ka mid ah waxba yaanu aniga marba shaadhay soo xidhan anna qabiil soomaaliyeed baan ka ayaana waxaanan leeyahay oo deganahay meesha lahada Somaliland ninka Soomaali marka horena isku daray anigu ahaa ninka maantana tashaday ee waliba aan baryada ku helin xooga ku helay iyo cududda Somaliland calankeedu ma aha wallahi saasan waligu sidinay ma aha wax ka Puntland bad moodis mise waxaad moodaysaa waxyaabaha heer kala samaysteen ma aha haddaba halka neelaga dilay waxa weeye reer Somaliland halka neelaga dilay waxa weeye waa maanta social media hana laga dilay dadkeena waxaan saaraa marka kun jeer horaan idin sheeg war waxaan ku leeyahay Facebook ma account bambu idin yahay lacag bay soo dhacday ilaa numka macaamiisha ma furabe share tani ogow share tana waxay kaga daran tahay rasaas iyagu si jeed bay ku share garanayaan waxa way iyagu ogiin hadra wuxuu garan kari jiray inuu hadalku wax ku yeelay afku wuxuu la xoogay magalka soo dinkay xigmad laha masa ay والله reer Somaliland baan khad ka taagnay wallahi iyaga dibna waan ugu soo noqonayaa saasana waligeena barnaamijkayga wadanaya imika bariyaan waxay ku oranayaan noo iska aamo iska dayo dadku waxay soo anigu xiisahay anigu danin xiisahay meeyi nin fishin iyo aragti labaan oo mabda leh oo dadkiisa oo wax diiday baan shalaytana hadaa waxay ku oranayaan reer Somaliland waa dad badan oo ducfaa bay nagu soo dhaxbahay ma shalayta waxa saa taageerayso shalayto ali suguul ciyaal dun carbeed اللهم استعان dad kan ma garanayaan ali sugulahan ka sheekeynayaan ma fahmayaan mala hadraawiye gaariye bay si yar garanayaan cabdi qaysiyo war dhamaantood de Soomaali way jeclaan laakiin markii Soomaali ay cidi tiri annaga sidan oo kale bal imika maanta ninka reer Sheekh Isxaaq afkaad fahmaysid waan kugu sheegay ee lagu oranayo Soomaali waa tahay haatan waxa isu diyaarinayaan inuu madaxweyne noqdo farmaajo ama mid kale oo daaroodaba kaba soo qaata mid kale hawiyana wuxuu doonayaa inuu ra'iisul wasaare noqdo adiga maxaa lagu ogoli kan waa bad Somaliland doorasho iyo cod baaba iyaga marka sidee baan wax idin ku sheegay ma iyaga soo kugu khasba marka adiga waxaaga de Soomaali way kala tagteen in Djibouti buu noqday oo waa ka soo horuusi socdo ma aqbalayba Soomaaliyiin wax lahayd oo lafna way tagtay oo waa ka soo meeshii la oran jiray oo laf Somali state bay la baxeen Mustafa Maxamed Cagtar baa madaxweynaha waa Soomaali halkaas ay nidaamkooda qaateen adiga waxan kuwan aad screens daba suray ee uu ku daba suran yahay waa maxay adbada majority baa too halkan aad kan yaree kula deganaa hadaan adigu micno samayn wax micno ma sameeyay annaga aan gunti soo gaanay oo guntaanu soo gaanay waxa weeyaan waa cadow nacab ku ah oo bareersan adna bareer xaaladdu markay bareer marayso waana bareer maxaa ku haray maalinka shaqada fanaankan aad arkaysaan maalintii hore Nairobi dadka dhibaatada ugu geystay waxay ahaayeen farmaajo iyo koox u dhaqaale iyo lacag ku soo bixinay oo xaqiiqa isna uu turunturooday oo muqdisho wax ka sheegay oo markaan kulay war markasta oo turunturoonaysa ha turunturoonina warniyo hadalkana naga khasaaranina waayo wax rag ninka faqash maanta u turunturooda halkan waan idinku soo qoray wuxuu ka dhigan yahay sidii ninkii habartu lagaday oo kale ninkii habartu lagaday haddaad faqash u turunturotid waaba intii halkan doonayay wuxuu halkan rabay Rooma igu helay waaba intii doonayaanba muqdisho dhib bay ku wadaan muqdisho way boobaan horena iyaga u boobay iyagana ummadda halka dhigay oo wuxuu ka tagay ayaxtag il sareeb dal
bay muqdisho loo dhiibay nidaam ah intuu burburiyey oo uu dhulka la dhacay hore waan idinku sheegin wadada tareenka hadduu uu qof ku dhigo tareenka ku jiiday khaladka ma laha tareenku meel buu istaagaa ku dhigay baa khalad kale siyaad barre isaga halkaa dhigay iyo nidaamkiisa iyo dictatorkiisa iyo nacabkiisa iyo waxaa maanta la socda iyo morganadooda iyo waxaasoo dhan iyagaa halkaa muqdisho dhigay maantana muqdisho wax amni baa ugu horeeyo muxuu ka qabtay in adigii markaad reer somaliland madaxweynahaadi iyo dowladdaadi iyo xukuumaddaadi lagugu jeediyo anigana igu tahdid xataa cabsaano beri baad la socon jirtay oo beri haddana waa arag baa ma soo noqday gafkana bashar baa u tahtad garowda khalad goob bay caadad intaasoo kunoo jeer baan ka raali geliyay reer somaliland laakiin reer somaliland ta wanaagsan dhalinyaro fara badan oo halkaas wallahi waan ku faraxsanahay idinka idin ku dari maayo markaan canaananayo reer somaliland idinka ma aha haddaad tihiin guruubyada faraha badan ee pages game kale somaliland news network allahu mustacaan ninka ara kale hebel gentleman cabdillahi jitamaala ninka ab kale barra la yidhaahdo groupkan isku xidhan ee la yidhaahdo midnimada ururka midnimada somaliland iyo dad badan oo fara badan laakiin waxaan sheegayaa kuwa brain washka lagu sameeyo ee allahu mustacaan waryaareen dee doorashooyin qabsan jirin oo haddii doorasho xanaf hadda ka hor axmed silaan waddo la mariyay laakiin markaa koonfurmay jooginay garta balaayadani halkaa dee habar jeclaba markaa eeg marka cadiifada yar laga hadlayo way xanaaqi karaysay iyo dee raggii la socday ama habraa wasaaca noosiyo may nagu sii daba dheeraan waynagii markiiba iska xalin iminkana wadani waa xisbigeeniino waxba maaha doorashooyin dambe jiri doona wallaahi mid ka xun ninka jeclaanayo kaas waa walaalka kaasaad wax wada boobaysan kaas ayaad isku deegaantiin kaas ayaa isku midtiin kani isagu wuxuu doonayaa adiga iyo isaguba inay wada rogmataan oo inuu ceerigaaba dagaal ka dhaco burco dagaal ka dhaco gabiilay dagaal ka dhaco hargeysa dagaal ka dhaco oo aynu gebigeenuba noqono sida iyagoo kale aynu noqono wada doonaya de markaa waa inaad fahantid oo aanu afka kuu soo dhoobin oo doqonow laakiin weligeed ba doqonkuu jiri jiray war intayna kale doqonada la dagaalno inagoo somaliland oo somalilandtana guud ilaashanan waxaanu leenahay oo aan ku celinaya hataa waxay soran doonaan iminkay soran doonaan mala lacag buu doonaya iyo qarash buu ka doonaya warni moral support waxa la yidhahdo dadkani wallaahi kharash iyo lacag iyo wax kasta way ku bixinayaan iyo moral support xukuumadda waxaan leenahay siyaasad ka yeesha idinkuna siyaasad ka yeesha oo yaan mar nin kastaba meel gaara laga helin haddii mid kastaba meel gaara laga helo hadhow waxba ina tari mayso beleda ama qabasho la buuri gaariya daba qaba niidhi baa rag noogu aqoon daran maanta aynu ka gaashaamano oo aynu dagaalkan inagu socdaa mid sahlan ma ahee sanad iyo ka hor baan idiin sheegayo in ku lahaa war idinka daraaddiin baan uga soo fallaagoobay somaliland baa iyo dadkaygan daraaddood bay nimankani hadda ka horna waan ku ii bunbuunin jiray wixii i waday xitaa youtube-yadan baas aygu qayb idin ka mid ah waa xitaa maqan youtube-yada iyagaa lahaa waxaasoo youtube ay iga daawan jirteen anigu warkayga iyagaa idin keeni jiray dee iminkana idinku isu geeya oo warkayga qaado oo idinku iga qaadadee wax kalaba iyo inaan istarin xukuumaddana waxaan leenahay xukuumadda somaliland iyo wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradaha arrimaha dibadda iyo cidday khusayso war niman yahow dhalinyaradu generationku waa leaderskii tomorrow waana powerkii dalka iyo dumarka had iyo jeer dumarka haddii lagaa soo galo iyo dhalinyarada way ku dhammaatay war dumarku waa iska caadi way isku dirayaan wadinka arkay hala xidho xitaa hablayaalaha ka lahaa habar jeclo iyo habarinisa waxaa ka lahaa xukuumaddu ha xidho saldhigyada ha lagu tuuro ilaha naam habrinis baa tahay naam habar awal baa tahay waxaan leenahay ha la xidho oo boolis bartooda ha ugu tagaan waxaas waa wax jira qolalkan whatsapp-yadana hana laga yareeyo whatsapp gruubyadana xanuun baa laga wadaa waayo whatsapp groupka waxa reer somaliland la hadhay whatsapp groupka meel fog gaari maayo waa intiina yaro koobanan laakiin youtube-yadan iyo pagekan iyo dadkayaga inteedan layfaf ka hadlaya qofkeenan xun ee isagu saqajaankaana war walaale aniga haygu fuudhinine bilaa calaykum qaar badan oo xitaa waan arkayaa dee marmarka qaar aniga haygu fuudhinine cabdisalaan ahaan runtaa fiican aniga iyo haygu fuudhinina ruuxaan arkaa kuwa hadda doonaan hayb ahaan aanu hayb wadaagno oo anugu khaladaadan hadda ka hor samayn jiray iminka samaynaya dabeedna iminka halkaas dadka qaar igu soo qoran oo odhanaya niyo kaas waa habar jecabsan oday xuno weyn oo xitaa meel australia meel laga keeno ona garanaynba oo habar jecel wax sheeganaya iyo kuwa kaloo habar jecel sheeganaya war aniga kuwa haygu fuudhinine kuwa anigu may hiday waxna igama garan iyagaa wadda khaldan bay haystaan oo haddii ay
damiir leeyihiin waxaan anagu isku laynay unbaa weli hor yaalla yani waxaan isku soo qabanay anagu soo ogaanay halkii aniga imay dabamar lahayn hadday imaan leeyihiin dadkoodaasi wax wanaagsan u sheeg lahaayeen xukuumadda haddii ay dhaliilayaan si constructive ah ayay u dhaliili karaan oo ama u cid u noqon karaa qofku ama wadani u noqon karaa laakiin marka ay wadaniyad markay timaado qarannimada difaaco dowladdana waxaan leenahay dadka nimayhu ku wacyigeliya qarannimadu waxay tahay wadaniyadu waxay tahay waayo ummaddu waxaa hogaamiya haldoorkii hadday iska aamusan yihiin oo aanay dadkoodiiba warrayn haldoorkii reer somaliland dee adeer madaxda minjaha maxaad malanaysaa waxay geela duqdiisu durduriso arrinkiisana maxaad mood haddii ka warran siyaasiyiinteenii mid kastaaba interestkiisa reerkeenna maanta xisbi gale reerkeennii baa waxaa loo diiday siyaasiyiintana waxaanu leenahay kuwa had iyo jeeraan xilka haynow war idinkuba laftigiina mas-uuliyad baa idin saaran maaha dowladda oo qudhan aad ku eedaysaan dowladdeenna waa ogtiinoo itaalkeedu iska yari idinka laftigiinu dadka shaqo abuur u sameeya oo dadka wadaniyadu waxay tahay ku wacigeliya oo ha ku jeedinin imika websaydo dhan baan arkayaa qof u shaqaynayaba oo ha ku jeedinina allahu mustacaan xukuumadda danta guud ka fakara oo danta guud eega taasaan iyadana leeg waxaan kusoo gabagabeynaya horta sirmaqabe alla u sahna allah yow nin daacada allah yow nin daalina deeqdaad hawsmi qaraxii iminka maalintii dhaweyto ka dhacay meesha la ahdo muqdisho qoladan kacaanka ee beenaalayaasha waxay war beena u gudbiyeen markiiba dowladda turkiga oo ay yidhaahdeen waxaa ka dambaysa dowladda imaaraadka maanta waxaa shir ku yeeshay magaalada muqdisho safiirka imaaraadka iyo allahu mustacaan ninka u fadhiya UN-ka Soomaaliya ee James Swan dunidana wax proof oo cadaana unbaa la dhageystaa waxay ku eedeeyeen imaaraadka intay u gudbiyeen meesha la ahdo Qatar dunidu masalaxaad bay kala leedahay dowladda Qatar iyo Sacuudiga wada socdaan iyo Mareykanka iyo dalal fara badan wada socdaan Qatar iyo Turkiga wada socdaan dowladda Qatar argagixisooyinka hadda iyo ka horba way meel gelin jirtay waana wax la isloogi sheekadana Niro Fahdi Yaasin la hadba sameeyay maanta caddeyntoodii baa looga fadhiya waayo dowladda imaaraadku waxay qayb ka tahay dowladaha Soomaaliya caawiya hadda ka hor xitaa ciidamada u tababarayay marka gabadha caddeyntoodii social media ka wadeenba waxay kula dul dhaceen dowladda imaaraadka to wax cad keena haddii imaaraadku al-shabaab baaba sheegtayba qaraxi bal beentoodii baa toos u caddaatay qaraxii ku eedeynayeen imaaraad iyo al-shabaab la isuma hadii jeer isma soo dhex galaan qadar baa lagu eedeeyaa inta badan oo lagu tuhmaa oo xaqiiqo dunida oo dhan hadlaysa dowladdan turkiga dowladuhu iskuma khasbana masalaxaad baa la kala iminka faransiiskana aan ku noolay dowladda turkiga wuxuu ku eedeynayay inay ciidamo dirtay Liibiya lama safna meelaha qaar oo lagu kala beeray laakiin marka siyaasadda ay ka wareersan tahay aanad meel laba la haysan dee sida waxaad samaynaysaa dhuumasho dhabarku muuqdo iminka waxay dadka ugu sheekayaan dhexdhexaad buu noqday xaguu ka noqday Fahad Yaasin oo meesha ku haya inanka yaraa maxaarka ayaa wuxuu la safan yahay dowladda Qatar halkaana waxa ka soo baxay ilaahay ummadan de Soomaaliya dadka ummadda qiyaamay Allah raxmad qaad qiyaamay karin maanta wada hadalka ay yeesheen safiirka dowladda imaaraadka iyo UN-ga Soomaaliya ee James Swan waxa laga wada xaajoonayay war nimankan maafiyada ee Soomaalina gabigeeda madaxa soo dhigay dowladahana iska eedeynayaan mootumse waxay moodayaan sidan qoladan ay u sheekayaan ee ubaxii kacaanka waruuxan sidee baynu dalka uga qabanaa iyaga laga shareeyo mana soo noqon doonaan laakiin waxa liidnimo ah taas waa taa halkaas ay ku baabaayaan waxa la reer Somaliland billahi alaykum gudololooyinkiina waa batay gudololooyinkiinu aad u baday idinka aniga iga si daran ba waxan iyo alaab idinka wallahi ka silid war dad dhulka iska soo qaada oo dad hal doora waxaynu ka soo jeednay dad iyagu wax hogaamiya oo dad iyagu hadalkoodu uu socdo ma inaan haan jirto dad xitaa loo caga jugliyo iyo dad Allahu musta'an daba dhilif noqda waxaynu haan jirnay dad strong war taariikhdii aysan iyo taariikhdii aanu lahayn wareenan ku dhaafsan qariib iyo qadayar oo maalinta la cuno inaan dhaafsan oo qiimka weyn la shan taga ku faraxsan la BK ba Allahu musta'an wa kulliidnimo ninka la
reesha qasxaaq oo dhan baan isku daraya ninka reesha qasxaaq ee maanta la safan faqash wallahi beri baad ka sheekan wallahi ee maanta ku faraxsan inankaa BK baa waxa lagu sameeyey wada saxaab oo qaata wallahi waa bahdilnimo inuu kugu ragu eekayaashi inay kugu farxaan oo ay kugu wiirsadaan wallahi waa ku damiir xumo dindar baa xaq u dheedugsaday dhaqayadeed maal wallahi baanay kala jeclayn haddaad isleedahay garxags bay jeceliin iyo habar jeclay kala jeceliin iyo habar walbay kala jeceliin wallahi inaanay kala jeclayn waxaba waxay meel bay uga soo wada jeedaan waxaa faraha badan ku odhanaya waanu fara badan mana isqabtaan hal falsafad baanay aaminsayn oo tii berigii horeba Soomaaliya ku kala tagtay waxay ku odhanayaan mee walaal uu iska tegayaa oo muxuu la tegayaa ayax tegaysa rab iminka abu dhiboodaa ma iminka dulmiga iska qabataan siyaad bare waxa ku dhintay dadka uu tegayaa muxuu ka tegay wuxuu ka tegay dulmigu ka tegay in iyaguna dhawaato iyo ay waxoonta noqdaan waraadiyad baan idin salaamaya asxaabaan iminka dabcan waan salaamaya dhamaantiinba meel ku sugantiinba reer Soomaaliland waxaan leeyahay nima yahow haniyad jabina ninkaana isna halka waxaan maranayaa haniyad jabin waligeedba ragu wuu ku faawo ka doobay wax iyo kuwa ku wada iyo kuwii markii hore xitaa ku eedeynayay waa dameeri laba sidaan isma dhaaman kuwii markii hore ku eedeynayay war adeer wali iyago inagu ninku dhibaato cidna mu caayin cidna aflagaado ma geysan qadiyada reer Soomaaliland bay ka hadlaan ayuunbu ka hadlo laha warna Soomaaliland baa nahay ilaahay dadkaana uu tacsiiday hawiyana mu caayin mudashana mu caayin waxa halka hadalkiisa bedelay waxa hayaan dhashii iyo faraacidii kacaankii afweyne ee orfanada kusoo koray ee beenaalayaasha ayaa wintay bedeleen ayay si kale ugu bedeleen masay inkana wakii ugu cunsurisana oo soo wareystay oo wareyska soo qaad oo aan arki karin isagu cidnaba Soomaaliland wax lahaaba waayo aabiyaashiba beenaalayaal xan jiray wallahi ma hadalkan uga turin ma dhagooyno kala waranigu new SNM waxaan sameeynaya new SNM dhagooyno muxuu dhimaan dhaweedo laga wareysanayay godagalkii SNM ee Hargeysa Morgan buu aabihi baa beenaalayaal jiray kana aabihi baa beenaalayaal jiray waa beenaalayaal gabadhiba wax babadee maxaa soo ka haray waa nin shakhsiyadaadi iyo taariikhdaada iyo dadnimadaada diidan dee adiguna diid wuu diiday hoo breedsan taariikhdaadi waa asee tad ku lahayd Soomaaliya isku dartay been buu ka dhigay maanta wuxuu ku leeyahay xamatiid had hore waxba iguma adkeenin antu kaaga wanaagsan ka cararaya runta ma jeclo beent marba dabadhilifkay hoosta ka galay marka anuguna waanu bareernaa waxaan leenahay war adeerayaal qaranimadiina iyo dawladnimadeena ruwaadku maynaan helin rag baa u dagaalamay oo u dhintay qofka bayda isagay u taala balse tani maanta dhacday waa foolxumo waayo dadku deesu mid maaha ninkan muddo boy la dagaalamay Nairobi kula dagaalameen halkan kula dagaalameen talabaad nin waxaan la yaabanay ruuxna nin waxaan la yaabay waxbay Somali Week Festival boo la dagaalameen ilaa imika daa la dagaalameen wuxuu Somali Week Festival ilaa Soomaalida moodana Yugoslav war Soomaali waa Soomaalida waa laga guuleysan kar waay laakiin waxa anagu aan dusha ka saaraya oo xaqiiqa oo baaritaanada dadkaas oo dhan aan la qabaa reer Soomaaliland niman baa waan shalay ninka niman waliba reer Soomaaliland baa waan shalay oo caada qaatayaala wasada dad kuwa maartay iyagoo isla Musabbix iyo Maxamed Kahin mucaarada taariikhdii Soomaaliland oo dhan ay wada lahayd aasa kuwaas ayaa wajalay walaalayaal guuleysta waxbana inagama xumaanayaan xukuumadeena berber istaaga madaxweyne Musabbixna isaga laftigiisa waxaan leenahay yaanu garab wayn geesi weeyaan soo dagaalamay Soomaaliland soo dagaalamay maantana waana run sheeg runtu ku dhiirada maantana run buu ka hadlay runtiisana inuu ku taageerno farmaajaha munaafiqa beenalaha iyo faqashto watana waxaan leeyahay xabad baa naga dhaxaysa wax kale naga dhaxayaan ku biicaba xageen ku heshin ma baynaan heshinba maantana inagu heshinba qodqodana la soo galeen waxa dhinaca ka socda xabad baa naga dhaxaysa xukuumadda Soomaaliland waa inay talaabooyin adag qaado waa inay iska nidaamkii hore siyaasad iyo ajende ay ka yeelato shacabka reer Soomaaliland waxaan leeyahay waa ina ka warhaysaan cadawgiina isu soo wada raacay ee isku wada haybta ah ee bareersan bal waan idin tirnay adinku halka tirada ka qorta baranbaro keere border lahayd xanuunka wada shishle
aniga maxaa qabiilkaygu lagu diiday anuu isaaq waan habar jacnay waan cidna ilama socon jirin keligii intoo dhanna way la dagaalamay barambaro dashiishe duqbilow xayawaan lo afuuf ogaadani waxbuu sheegtaa isaguna odayga saaqadka weyn ee dhekada weyn odayga bbcda ka soo dhacay cali xaraare inaa xayawaan soo tiri maaha qudunquuto kayar waa warsangeli kaasuna qudunquuto warsangeli dhuxulaysato allahu mustacaan ka kale la yidhaahdo ii sheeg isagana waxa maxaa la yidhaahdaa kaka hoos qosla ee isagana miyaasiin iyo wax lahdee maalayacniga ee kale xayawaanka shaydaan ususay waa la qolo shaydaan isagan habar gidirta sheegtay isna la yidhaahdo daahir calasow ka dabageey wixii aakhiro degay isaguna waa waxa xayawaaninta mid kale oo isna maraykan iyo wax ka soo hadla oo berina beeniga sameeyey intuu aniga lacag ugu raadsaday quraarada iyo balaayo sameeyo magaca dumar leh oo mooji mala hormoniska dumarka ku badano mooji ifraax iyo wax waxa la yiraahdo ka magaciisa ma karaba waa mid kala oo timo weyn wax samaystay oo ira xayawaan kala bal intaas ma anaga daaroodin ka dhignay waliba waa kuwa ugu yar yar ee ugu xayawaansan mawti waxaas oo dhan farmaajo wata wallahi keligii baa wada darbaxay la dhacay ilaahuma Francisco ugu timaadaan sunaxta Francisco Paris isugu nimid yaa ilma xayawaan wallahi intaan noolahay gujiskii badaan uga dhignahay gebiga daaro dhamaantiin ma anaga been noo sheegay iyo qabyaaladina tayada ka qurux badan dalkayga iyo deegaankeeda hor nooga baabisan maantana dadkayga baa duulaan ku jiraan sana ma iskada oo iskad war cirka jeex soo dumiya wallahi intiina kalena meesha waan ka saarayna Soomaaliland weligeed u jiraysaa waana joogis marba qolo waala garxaytiisa waala waa garxayso anaga halka anagu marnay maraya khasab wallahi aan reesha qasxaaq reer bayri karin amarka ugu dambeeya anaga bixin habar walbaan bayri karin habar jacnaan bayri karin arab baan bayri karin ayuub baan bayri karin garxaytis baan bayri karin harwa qolada bayda wallahi ma ku Soomaaliland la joogaan bayri karin qofna ma bayri karin halka anaguna mara ay marayaan Soomaaliland baan horaan waxa aan ugu soo baabaan xaga anaga noogu wareegaysa war meesha anaga haysana gabigeedaba niic loo baahna faqa shay xaga haystaan adinku muqdisho du saar baa ku tinoo leeyahay wiiw soo saaray waa ka soo saaray wiiw war wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sanad wanaagsan dagaalku soconaya saadina iska warhayno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi anaga ba noo soo waryaanay xayawaanintan dhurta saarnay unba dhalinyaradeedu soo wareysanayaba iyo fanaaniinteedu sunnagii xayawaanka ka dhignay dadna wada dad ma ahay muxuu dalada habeenkii duur la isla wada jiro hadaan guusha leeydin alla ilaahay ducdeedii ha gobolama dadweynuhu wallahi waanigi wadada ka saar taaraha darbiga dheer hadaan soo xuntii ka dhigay baar calaal ku soo diray taaraha darbiga dheer hadaan daaqad laga korin dar alle u kibirtay hadaan soo ku dalan meen waxay kaga dhawayn taaraha kan nuura haddu meenayaan dhow la isdaawan maaye taaraha kan baabuurtan duusha dib u guuxmaysa maqal daba kanaaxo anigoo dagaal tagay hadhow aniga daba dheer la dooran mayso daba kanaaxiyo wallahi daba kanaaxidi baan noqonaysaan debel baan ku ciyaarna waa way kibirteen waxa badaheega in soo galiy annagii baan ugu wada mashquulshanba biikay war aniga baluxiyara iska daabi ka kalayo halkan Francis baan joogaa basasan baan joogaa wallahi akhran wada diray dhamaantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh